qaybgalayaasha xafladan oo ugu horeeyo maamulka xigeenka culimada waalidiinta ardayda quruxda badan marka koowaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaam qofku marka uu dhalinyaro yahay oo waxbarashada loo soo diro waxa weeye waxbarashada waxa laga rabaa inay ka muuqato qodobka koowaad oo laga rabo marka ardayga wuxuu noqonayaa akhlaaqda ardaygu mar hadduu yahay mid akhlaaq leh oo wanaagsan oo toosan waxay noqon doontaa marka wixii loo dhigo inuu si qurux badan u qaato haddii waxa weeye waxa loo dhigay uu si qurux badan u qaatana waxa weeye wixii hadafkii lahaa waa la gaaraya marka ardayga akhlaaqda muxuu ku khasbanaan doonaa wuxuu ku khasban yahay inuu ixtiraamo macalinka u dhigay macallinkii hadduu ixtiraam uu ka helana wuxuu ku khasban yahay waxa weeye wixii loo soo dhiibay oo risaalada ahayd oo waday inuu si qurux badan u guto waqtiga iska kooban iyo quruxda iska kulul kaliya waxaan rabaa inaan xoojiyo fariintii maamulaha oo ahayd in wixii sabtida loo gaaro waxyaalo badan oo ardayda dhaqanka ka dhigteen la bedelayo waxbarashadu waxay rabtaa dulqaad iyo ixtiraam iyo samir bay rabtaa munaasabadan quruxda badan leh oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada guddiga inta soo qaabisay ardaydana waxaan ka codsanayaa in heerkooda waxbarasho ay kor u qaadaan iskuulka isbedel baa ka jira guddiyo fiican baa jira oo gudoomiyuhu hogaaminayo macallimiintu waxay u heelan yihiin inay ardayda mataqaana waxbarashadooda kor u qaadaan idinkana waxaan idinka rabaa kaalinta aad leedihiin inaad ka soo baxdaan insha Allah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib insha Allah taala waxaan horta mudnaanta siinaynaa ilaaheena subhanahu wa ta'ala ma maanta isku keenay praise be to God glorious be to God gave us this opportunity to gather here today insha Allah taala maanta fursadaan siiyay in this kind of mesmerizing and attractive party xafladan noocan oo soo jiisho leh oo la soo qaabiyay marka insha Allah taala aad baa ugu faraxsanahay dhamaanteen aad ugu faraxsanahay waa wajiga ugu horeyso ee maanta macnaha ee balbusle ee macnaha bidhaankiisa ay soo muuqato oo aan doonayno isbedel ka sii wanaagsan in rajeynayno insha Allah taala sanadkii hore iyo sanadkan maanta insha Allah taala waxa uu arkayna maanta isbedel fiican inay ka muuqato oo maanta ka faa'iideysanahay this golden opportunity fursadan ee qaaligan ah ee dahabigan ah xoogo waxaan oran lahaa ana muddada iska gaabay yahay macna walba laba daqiiqo la siiyay marka waxaan isleeyahay hal qodob laba qodob ayaa macnaha doonaya insha Allah taala dhiirigelin iyo motivation inaan ka hadlo halkani mid ugu horeyso waa xagga macnaha common goals ka halkan isku imaanay ama common objectives our main objective ujeedadeena dhabta ah halkan isku imaan waxa waaye in macnaha aqoontan iyo knowledge gana halkan macnaha isku keeno in wax la barto iyo kuwii wax baranaya iyo kii wax baranaya runtii isma lahayn aniga 2010 isma lahayn marka ardaydii aa ka tagtay iskoolkaagii baayomin ayaa hor istaagi doonta oo wax ka dhigi doonta runtii aniga makarafoonka markay noqotana qof iga geesisan ma lahan hadalku xitaa waa iga khaldama raalli ahaad hadda wax khaldan dhaho run ahaantii aad baa ugu faraxsanahay waana mahadsantihiin waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka iskoolka macallimiinta waalidiinta ardayda dhalinyarada quruxda badan ee barnaamijkan soo agaasintay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin taankii soo maaj anigoo matalaya ardaydii tagtay oo iskoolkan ka baxday iyo kuwa maanta jooga runtii aad baan ugu faraxsanahay waan idin mahadcelinayaa intaas aniga liiga siiya xafladda taankii soo maaj madasha noocan oo kala waxay keenaysaa in dhalinyaradu ay si fiican isku qabsato aysan noqon dad kala qoqoban madaahib kala wata nooc doonaan baha ahaatee ayagu dhexdooda isdagaalsan inaysan noqon maanta waxaa tihiin tiirkii dhammaan waxaa tihiin qolusle gobolka deegaan ahaan ama Soomaaliya dhanba inaad tiirkooda tihiin maanta haddaad kala qoban tihiin ayna isku tiirsaneen ama ayna tiir ayna ahayn ma noqon doontaan ama waxba kama bedeli doontaan bulshada Bismillahir Rahiim wuxuu yiri tacliintu qofkay dhistaa qofkay tabantaabisaa naftiisay toosisaa dantiisay tiirisaa hankiisay taamisaa libtay ku talaabisaa halkuu tiigsiga rabay tubtii loo mari lahaa tilmaan wacan ugu saxdaa tacliintu qofkay dhistaa qofkay talada u hagtaa afkaartiisay togtaa waxqabadkiisay taxdaa habdhaqankiisay tigtaa kashiisay tuujisaa tilmaanta halkuu rabiyo halkuu tag isleeyahay tiraahdaa waa dadaal wixii kaateeda hoy
tacliintu qofkay dhistaa qofkay tabantaabisaa wuxuun badan bay tartaa hadduu teeb iyo waraaq dukaanka ka iibsado u tago bare iyo ustaad dabeedna ta loo dhigo taraay lagu dhaho again testina laga qaado oo 90 loo qoro dhibcaha markuu jaamacad tago top levelka lagu daro degree iyo PhD tafaha loo wada suro tahniyad loo wada diro wararka TV-gu diro Tansaaniya ruux ku sugan ama Toronto iyo Mumbai halka ka xiraaca oo ka eega technology-ga ayuu kan table iyo tabaashir qaadanani tiraanyi ciil dartii tolla ay ku qayliyaa asoon waxba tari karay